kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeennii qubanaha VOA oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga. qodobada toddobaadkan barnaamijka aanu idinku haynana waxaa ka mid ah isbeddelka ka socda gobolka Soomaalida Itoobiya ma ku socdaa sidii loogu talagalay siyaasiyiinta Soomaalida ma ka faa'iideysan karaan fursadaha taariikhiga ah ee ay haystaan xilligan. bahda ciyaaraha Soomaaliya oo soo dhaweeyay in ciidanka AMISOM ay ka baxaan garoonka Stadium Muqdisho iyagoo sheegay in tani ay qayb ka qaadan doonto horumarinta ciyaaraha. injineero cisbitaalle ku yaala dalalka Afrika siiya qalab lagu yareynayo tirada dhimashada carruurta markaasi dhasha. qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. gobolka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socday isbeddello kadib markii la magacaabay madaxweyne cusub oo isagu toddobaadkan gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda maamulkaasi halkaasi oo uu ku magacaabay xilal kala duwan. dhinaca kale madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la soo xiray ayaa isna la soo taagay maxkamad magaalada Addis Ababa isagoo dowladda dhexe ay ku eedeysay xadgudubyo iyo inuu door ku lahaa rabshadihii ka dhacay dhawaan magaalada Jigjiga. haddaba isbeddelada gobolka Soomaalida ma ku socdaan sidii loogu talagalay siyaasiyiinta Soomaalidu ma ka faa'iideysan karaanse fursadaha taariikhiga ah ee ay haystaan. arrimahaasi waxa ila falanqeynaya oo qadka Skype-ka ee Los Angeles ku jira Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika kana tirsan dowladda hoose ee Los Angeles. Faisal mar kale ku soo dhaw barnaamijka qubanaha sidee u aragtaa howlaha hadda ka socda gobolka ee isbeddelada badan keenay. runtii waa isbeddel kolaba xawaari speed ama xawli aad iyo aad u sareeya ku socda. madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar dambiile ayaa laga dhigay dacwadana waa lagu soo oogay. Mustafa Cumarna xafiiskii waa qabsaday. shalay wuxuu magacaabay dhowr xafiis inkastoona weli aanu soo wada dhammayn magacaabistii. marka waxaad moodaa isbeddel dhab ah inuu deegaankii ka dhacay iyadoo kolaba hadda waqtigii isjiidashada iyo dabawareegga siyaasaddu hadda uun bilaabmayo. furfurnaan badan laga sugayaa Itoobiya inay wax iska beddelaan ma muuqataa guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Soomaalida ee deegaan. horta guud ahaan waa muuqataa oo xisbiyadii mucaaridka ahaa oo dhan baa soo galay oo wada hadal kula jira. waxyaabo badan oo hadda aad arkaysaana waa hadhaa ka hadhay dhibaatooyinkii hore ee dalku ku jiray. gaar ahaan gobolka deegaanka Soomaalida waxaan weligeed ka dhicin baa ka dhacay shalay iyo doraad oo ah xilligii Cabdi Maxamuud Cumar. inkastoo dadku moodayeen inuu dadka Soomaaliyeed u hiilinayo dadyowga la laayay ee Soomaalida waa loo diidanaa inay meedkooda Jigjiga keenaan ama dhaawaca dhakhtarka Jigjiga keenaan. shalay toole 14 qof ee la dilay meedkoodii Jigjiga la keenay waana lagu tukaday waana lagu mudaaharaaday iyadoo taageero loo muujinayo. dhaawiciina waxa la keenay hospitaalka weyn ee referral hospital la yiraahdo Jigjiga. marka arrintaas waxay ku tusaysaa in ay furnaan cad ka dhalatay deegaanka isla markaana uu madaxweynaha cusub taagtiisu meel ay dhigto iyo waxa lagu canaanan karaa lagu canaantay in kolba uu rabo qadiyadan xasuuqa Soomaalida ku socda bal inuu open uu soo baneeyo uu dadka Soomaaliyeed u soo bandhigo. dhinaca kale waxaa jira in madaxweyne cusub hadda la doortay la magacaabay madaxweynuhu uu tagay magaalada Jigjiga oo ana lafta iyana dhinac kale joogtaa. siyaasiyiin kale waa ay jiraan oo isbeddel doon ahaa oo qurbaha iyana ka tagay. waxaasoo dhan hal qorshe ma wataan oo isku meel ma u socdaan mise waxaa jira kala duwanaanshiyo dhinaca fikirka ah. hal qorshe uma socdaan waa kala duwan yihiin laakiin anigu waxaan oran karaa anigoo si gaar ah u fiirinaya barnaamijka ONLF ay bariyahaasoo dhan kaga dhawaajinaysay iyo madaxweynaha cusub ee hadda la doortay ama la magacaabay in ay isku soo dhawaan karaan sababtoo ah madaxweynuhu hadda wuxuu la wareegayaa xisbigii talada hayay xisbigaas oo maamulka deegaanka hayay iyo ONLF-ta oo iyana ay barnaamijkeedu muddo dheer socday. marka kuwa kale waa shakhsiyaad barnaamij male qorshe male. waxaan u malaynayaa inay noqonayso arrimahoodu social ama arrimo ijtimaaciya inay ka dagaalamaan ama ay ka doodaan iyo boosaska iyo awood qaybsiga. intaa wax dhaafsan waxaan u malaynayaa ONLF-ta iyo xisbiga uu Mustafa Cumar la wareegi doono inay isku iman doonaan barnaamijna ay ka wada tashan doonaan ama iska soo horjeedeen oo siyaasadda ha ku baratameen ama meel qaarkood ha ka midoobeen. marka laga soo tago colaadda ka jirta deegaanka
dadka Soomaalida ah ee gobolka mis aaminsan yihiin oo is aamin ma ka dhaxeeya dhexdooda walaal Falastiin ay dadka Soomaalida bay la mid yihiin hadaf bay leeyihiin way og yihiin ka madaxa laga dhigayo ilaa ka ugu hooseeya ee dhalinyarta suuqa socda in dawladda Itoobiya ay qasab ku qabsatay muddo hadda 100 sano iyo dheeraad laga joogo in aan xuquuqdooda loo ogolaan in gacan bidixayn lagu sameeyo in dhibaato iyaga u gaar ah hadii jeer ay jirto Itoobiyaanka kale kaga duwan yihiin way is og yihiin hadafkooduna ma kala foga laakiin gacan shay ku dhex jirta Mustafa Umar iyo dawladdiisa waxa u taala in ay waxaasoo dhan hufaan oo marka ummadda Soomaaliyeed waxay xaq u lahaayeen miiska soo dhigaan isla markaana dood adag ay ka galaan adsaamana ay dooda adag oo qaranka Soomaaliyeed ee meesha lagu haysto ay kala xaajoonayaan dhinaca kale waxaa jirta Faisal in gobolka marka hadda la fiiriyo ciidan ay ka jiraan la yiraahdo Liu Police ama booliska sida militariga u tababaran maamulka cusub kalsooni badan kuma qabto hay'adaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidankaasi gabi ahaanba la kala diro tiradiisa waxaa laga sheegayaa qiyaas kala duwan ilaa 40 ku dhawaad ilaa 30 ku dhawaad dhinaca kale waxaa jira mas'uuliyiin maamulka hore xilal ka soo hayo oo madaxweynaha iyo wasiiro iyo dad kulay ku dhawaa ay kamid yihiin sidee loo maamulayaa dhinaca cadaaladda marka la fiiriyo ama in la maxkamadeeyo dadkii ma in la iscafi xagee laga aadayaa halkaasi marka ay noqoto isla xisaabtanka ilaa labada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha federaalka iyo madaxweynaha gobolka waxay sheegeen in isla xisaabtan uu jiraayo sidee loo xisaabtamayaa horta isla xisaabtanku waa inuu ka dhacaa Itoobiya oo dhan 27 sano ayaa dadkan Itoobiya ku hoos jira Soomaalida Oromooda cid kasta la soo cadaadinayay khalad weyn baan u aragnaa in deegaanka Soomaalida oo kaliya ta is xisaabtankaasi uu ka dhaco is xisaabtanku waa inuu dalka oo dhan ka dhacaa taasi waa koow talabaad Soomaalida waxa had iyo jeer danta ugu jirta dib u heshiisiin ballaaran oo dadka la isku soo taliyo tan saddexaad arinta Liu Police ee kaga dhawaajisay waa arin jirta waa in la kala soocaa askariga qoriga haya ee amarka la siinayay iyo ka amarka siinayay arintaasina Itoobiya oo dhan in laga sinaada waa in Mustafa uu qorshe soo saartaa uu dib u reform ama dib u habeyn ugu sameeyo ciidamada Police-ka waan ku tala jiraa baan maqlayaa laakiin shakhsiyaadka lagu tuumayo inay amar siin jireen in ummadda Soomaaliyeed tacaddi ay ku sameeyaan kuwa in la xisaabtamo cidna diidi mayso waana lagu goobaabinayaa madaxa cusub laakiin xagga gacan adag ummadda Soomaaliyeed deegaanka lagu qaban lahaa waxa la door bidayaa dad badan oo la sheekaystana hadda ay sheegayaan inay door bidayaan in dib u heshiisiin ummadda lagu soo tallaabo aad umahadsan tahay kaas waxa uu ahaa Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika kana tirsan dawladda hoose ee Los Angeles qadka Skype-ka ayuu noogu waramayay aad umahadsan tahay Faisal adaa mudan Falastiin toddobaadkan bahda ciyaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay in dib loogu soo celiyo maamulka garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho oo fadhiisin u ahayd ciidamada AMISOM kuwaas oo halkaasi ka baxay dadka ciyaaraha jecel ayaa rajeynaya in garoonkani marka uu hawl bilaabo uu qayb ka qaadan doono horumarinta ciyaaraha Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdilqaadir Maxamed Cabdulle laga soo bilaabo 2006 tuulada isboortiga Soomaaliya Stadium Muqdisho nasiib uma yeelan in lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha waxay ahayd fadhiisimo ciidan waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan 2011 waxa fadhiisan ciidan ka sameystay ciidanka midowga Afrika AMISOM kuwaas oo muddadan gacanta ku hayay 20 sano kadib garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho tuulada isboortiga waxa maanta isku soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxaan ciidamada AMISOM oo 8 sano ugu dambeysay oo ahayd xarun military waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa waxaan arkay dhalinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya ma ahayn ciyaar qaabaysan waxaase ka muuqata rajo wanaagsan iyo inay meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda dhammaan irdaha laga soo galo garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho waxaa ka soo galayay boqolaal dadweyne ah qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha ha noqdaan dhalinyaro ciyaaro kubadda cagta kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta iyo kuwa weli gacanta kula jira waxaan garoonkii aan ku bilaabo waa ciyaaraha oo naadigii ugu horeeyay gorgora la dhaayo aan u ciyaaro gorgor markii ugu horeeyo aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan Stadium Muqdisho laakiin nasiib wanaag maysan helin dhalintii annaga naga dambeeyay inay garoonkan ku ciyaaraan
burburkii wixii ka dambeeyey oo dhan laguma cayaarin waxaa loo wareegsaday stadio conis oo hadda banaadir loo bedela magaciisa marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo ciyaartooy tayo badan ee ka soo baxday Sakariye waa mid ka mid ah dhalinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho balse 12 sano dusha ayuu ka eegayay markii ugu horeysay maanta ay u suura gashay wuxuu naga waramay VOA dareenkiisa meesha waxay ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa ma ahan banaankiisa dhinaca dhoobada xaqiisa alxamdulillah maanta waan ku faraxsanahay anigoo maanta oo nin weyn ilaal ibaado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanahay Cabduqaadir xasan aadan yabarow wiish gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne ee tagay garoonka Stadium Muqdisho waxa uu sheegay VOA in tani loo qabo baahi weyn waxna ay ka bedeli doonto baahida isboortiga gaar ahaan dhanka garoomada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxay kaga dhigan tahay guul weyn u soo hoyatay in garoonkii Stadium Muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato dabcan waxyaabo badan ayaa kaga xayirnaa waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuulada isboortiga lagama faa'iideysan muddo 30 sano ah laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iideysano Stadium Muqdisho tuulada isboortiga ugu weyn Soomaaliya waxay kulminaysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waxaana jira baahi weyn ay qabeen bahda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho Soomaalida ku nool Britain ayaa toddobaadkan sameeyay dibadbax ay ka hor dhigeen xafiiska ra'iisul wasaaraha ee number 10 ee Downing Street iyagoo ka cabanaya caruur laga qaatay qoys Soomaali ah oo ku nool magaalada Leicester iyagoo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dalbaday in caruurtaasi dib loogu celiyo waalidkii dhalay warbixintan waxaa noo diyaariyay wariyahayna Ridwaan Xaaji Cabdiwali waa boqolaal qof oo Soomaali ah oo isugu soo ururay fagaaraha Trafalgar Square kadibna waxa ay socod ku tageen afaafka hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Britain boqolaal qof ayaa isku soo baxay waxayna shucuurtooda ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dhibkii loo geystay ninka la yiraahdo Maxamed Saciid iyo Saudi Maxamed Saciid oo ah waalidiin iyagu dhalay 4 caruur ah deegaankooduna yahay magaalada Leicester Midlandska ama gobolada dhexe dalkan meeshaasi oo maxay ahayto lagaga qaatay bishii Febraayo sanadkii la soo dhaafay ilmahooda ehelada 4 caruurta ah ee la qaatay ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii banaanbaxaasi ka qayb galayay macnaha family ahaan baa nolol ku diiday macnaha waxa nolol ogol yahay malaha iska daa musline cunug yar waxa jiro tiisama waan hadlin isagana meel gooniya lagu tuuray Soomaalida ku dhaqan magaalada Leicester ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhigayay dibadbaxyo noocan oo kala ah oo ay ku diidan yihiin qoyska caruurtaasi laga qaatay waxaana ay rajaynayaan in mar uun ay dib u midoobi doonaan caruurtaas iyo waalidiintooda Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London sida ay sheegtay hay'adda WHO in ka badan 2 milyan iyo bar caruur ah ayaa sanad walba dhinta bisha ugu horeysa ee ay dhashaan waxaana dhimashadan inta badan ay ka dhacdaa dalalka soo koraya oo aan iyagu haysan daryeel caafimaad haddaba khubaro ayaa cisbitaallo ku yaala dalalka Afrika waxa ay siiyeen qalab lagu yareynayo tirada dhimashada ee caruurta markaasi dhashay Elizabeth Lee ayaa warbixintan diyaarisay waa kan Maxamed Sandere khibrad indhaha u furtay ayay u ahayd Sonia Sosa maray tababar ku qaadanaysay cisbitaal ku yaala dalka Malawi mararka qaarkood waxaad arkaysaa caruur aad u badan iyo kalkaaliyaal caafimaad oo aad u yar aad bay u adkayd in aan halkan ka shaqeeyo hase yeeshee waxa igu keentay in aan noqdo oo aan aad u soo dadaalo si aan carruurtaasi uga helo adeega ay u baahan yihiin Sosa waa mid ka mid ah halwadeenno caafimaad oo dhowr ah oo samaynaya teknolojigan oo kale kaasoo lagu magacaabo IncuBaby oo ah sariir diiran waa teknoloji lagu caawiyo bukaanada kuwa ugu nugul ee ku jira cisbitaalada dalalka saxaraha ka hooseeya sida Malawi waxay tidhi carruur aad u yaryar oo hadda dhalatay ee teknolojiyadda ku filan aan haysanin
17 qalab tiknoolaji ayaa la tilmaamay iyagoo iswatana waxay ka hortegi karaan waxyaabaha keena dhimashada carruurta sida ooforeenka iyo xilliga uurka oo aan dhammaystirmin. waxay tidhi ardadeennu waxa ay keeneen qalab ku kacaya $100 oo keliya hawshana si fiican u qabanaya islamarkaana ay fududahay in la dayactiro haddii ay wax ku dhacaan. dalalka sida Malawi waxa uu heli jiray kaalmo dhinaca qalabka caafimaadka hase yeeshee ma ahayn qalab mar walba waxtar leh. waan arkay in qalabka kaalmo ahaan looga keeno dunida horumartay aanu halkan anfacaynin. dadku si kale ayay u isticmaalaan. markii ay jabaan meel ayaa la iska dhigaa cid dayactirtaana ma jirto. qalabkan boodh baa ka buuxsama waxa uu noqdaa waxaan waxtar lahayn waayo mishiinkii ma aha. waxay tidhi injineerada dhakhaatiirta kalkaaliyaashu ma yaqaaniin amaba looma tababarin waa haddii aanay jaamacadaha galbeedka ka soo bixin halkaasoo ay tiknoolajidan ku soo shaqeeyeen markaa waxaa jira wax weyn oo ay tahay in wax laga qabto. isbeddelkaas waxaa ka mid ah in la sameeyo tiknoolaji cabbiraya heerkulka ilmaha iyo heerka neefsiga. qalabkaasi waa inuu jabnaadaa muddana la isticmaali karaa. 17kaas tiknoolaji qaar baa iyagoo iiba la helaa kuwo kale ama tijaabo ayay weli ku jiraan ama way dhow yihiin. yoolku waa in ugu dambayn la sameeyo dhammaan qalabkan. Malawi ayaa lagu bilaabayaa kadibna dalalka kale ee saxaraha ka hooseeya ayaa la geynayaa. toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka qubanaha oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo jooga London iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe waxaanu idinku dhaafeynaa nabadgelyo.